salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal subax wacan oo wanaagsan kuna soo dhowaada barnaamijkeenna ciyaaraha oo diiradda aan ku saari doonno xagga suuqa kala iibsigu ciyaartoyda ugu horayn haddii aad nagu cusub tahay fadlan sabskaraab dhaho janaalkeenna adiga oo riixaya calaamadda gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya hana naga iloobin in aad laag saarto muuqaalkan mahadsanid aynu ku hormarne neymar jr ayaa dib ugu laabtay xarunta p s g isaga oo kulan 3 saacadood qaatay la yeeshay agaasimaha cusub ee kooxda Paris Saint-Germain Leonardo waxaana uu ku wargeliyay in uu doonayo in uu baxo xagaygan agaasima Leonardo ayaana go'aanka wuxuu farta ka saaray Neymar jr Neymar ma uusa samayn baaritaanka caafimaad sida ay sameeyeen ciyaartoyda kale ee kooxda lamana filayo in uu ka qayb noqon doono safarkooda ay ku aadi doonaan cariga Jarmalka kulankooda waxa uu ahaa mid soconayay waqti aad u yar Neymar ayaana durbadiiba wuxuu isaga baxay xaruntii tababarka ee kooxda Paris Saint-Germain waxaana la arkay daqiiqada kadib Neymar oo waqti ku qaadanaya xarun gym kooxda Real Madrid ayaa dhankeeda ilaa iyo dhamaadka isbuucan u qabatay naadiga Napoli si ay dalab fiican ugu soo gudbiyaan James Rodriguez Real waxay doonaysaa 38 milyan oo gani iyadoo kooxda Napolina ay u aragto lacagtaas mid badan Atletico Madrid ayaana diyaar u ah in lacagtaasi ay shubto laakiin Real Madrid ayaa weli ka fiirsanaysa in qatarta James Rodriguez lagu soo weeraro iyadoo la joogo isla caasimadda Spain ee Madrid kooxda Arsenal ayaa u muuqata mid uu seegayo saxiixa laacibka lagu magacaabo Nabil Fekir sababtoo ah ma doonayaan in ay iibiyaan Mas'uud Ozil Gunners aad ayay u doonaysaa Fekir laakiin haatan waxaa ku dagaalamaya saxiixiisa 3 kooxood oo Spanish ah iyo waliba kooxda caanka ah ee lagu magacaabo Liverpool kooxda Liverpool ayaana tartan adag kala kulmi doonta kooxaha kala ah Sevilla Valencia iyo sidoo kale kooxda lagu magacaabo Real Betis taasi oo la micno ah in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u dedejiso soo xirigelinta Nabil Fekir oo kamid ah xidigaha sida weyn looga hadalhayo suuqyada qaaradda Yurub xilli ciyaareedkii hore ayayna si aad ugu dhawaatay in Liverpool ay soo xirigelayso laacibka reer Faransa ee lagu magacaabo Nabil Fekir laakiin qorshahaasi wuxuu noqday mid guud ahaanba dhicisoobay kooxda Inter Milan waqti xaadirka kan waxay dhex jibaaxaysaa xaalad aad u adag taasi oo noqonaysa laacibkooda Mauro Icardi ma keenay karaan Romelu Lukaku oo beeciisa waa mid sare ah waxaana haatan ay u jihaysteen in si xur ah ay ku soo xirigeliyaan laacibka garbaha ka ciyaaro ee lagu magacaabo Daniel Sturridge oo ah macallimka goolasha laakiin xilli ciyaareedkii dhawaan soo idlaaday waxa uu noqday mid xoogaa yar ay ka taal Mawsan ayaa lagu abaalmariyay qandaraas cusub oo 5 sanadood ah xilli uu u saxiixay kooxda Chelsea xidigan ayaa wacdara ka dhigay xilli ciyaareedkii hore kadib markii ama uu ku qaatay kooxda Derby isla markaana uu ka horshaqaynayay macallimka haatan ee kooxda Chelsea Frank Lampard Mawsan ayaana loo arkaa mid ka mid ah xidigaha uu sida weyn ugu tashanayo macallimka lagu magacaabo Frank Lampard kooxda Manchester United ayaa isla maanta dalab 50 milyan ah waxay ka gudbinaysaa xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Sporting Lisbon ee lagu magacaabo Bruno Fernandes waxaa jira kooxo badan oo xiiseynaya laakiin uma ahan bartilmaameed koowaad taasi ayaana caawinaysa in Manchester United gacanta ay ku dhigto kabtanka kooxda reer Portugal ee Sporting Lisbon Bruno Fernandes dhinaca kale kooxda Barcelona ayaa si rasmi ah waxay ugu dhawaaqday lambarka uu xiran doono xilli ciyaareedka soo socda ee 2019-2020 laacibka lagu magacaabo Frank de Jong oo dhawaan ay kala soo wareegeen kooxda Ajax Amsterdam Frank de Jong ayaana lagu sharfay lambarka 21 xilli horay uu u xiran jiray Carlos Alena maadaama uu ka codsaday de Jong ilaa hadda kadib wuxuu xiran doonaa lambarka 19 in de Jong uu codsado xirashada lambarka 21 sir ayaa ka dambaysa sirtaasi oo noqonaysa de Jong muhiim ayuu u yahay lambarka 21 sabab qoyskiisa darteed de Jong ayaana awowgiisa lagu magacaabo Hannes de Jong waxa uu dhintay maalintii uu u dabaaldegayay dhalashadiisii 21 tan iyo markaas de Jong waxa uu xiran jiray lambarkan si uu ugu xasuusto awowgiis halkaasina waxay noqonaysaa sirta ka dambaysa in had iyo jeer aan ku aragno de Jong oo xiran lambarka 21 waana mid ka mid ah xidigaha da'da yar ee la filayo in ay gelgeli karaan kubadda cagta ee qaaradda Yurub
iyo dunida oo dhan. xiddiga qadka dhexe ee reer welish ee lagu magacaabo Aaron Ramsey ayaa ka hadlay shirkiisii jaraa'id ee ugu horeeyey isaga oo ah ciyaaryahan rasmi ah oo ka tirsan kooxda Juventus ee ka ciyaarta horyaalka Serie A Talyaaniga. Aaron Ramsey ayaana noqday ciyaaryaankii ugu horeeyey ee reer welish ah oo xirta maaliyadda Juventus, waxaana kaga horeeyey John Charles oo horay u soo xirtay maaliyadda Bianconeri intii u dhaxaysay 1975 ilaa iyo 1962. xiddiga qadka dhexe ee reer welish Aaron Ramsey ayaa wuxuu ugu horayn hadalkiisa uu ku bilaabay: waxaan idiga mahad celinayaa dhammaantiin imaatikiinna. waxaan doonayaa in aan sheego in aan ku faraxsanahay ku biirista kooxda Juventus. waan ka xumahay in luqaddayda Talyaaniga aysan ahayn mid aad u fiican, laakiin haatan waan baranayaa. markii aan maqlay in Juventus ay xiisaynayso, waxaan u arkay in ay ahayd fursad, taasi oo aan ku rumayn karo riyada iyo rajada aan ka leeyahay socdaalkayga dunida. kooxda waxay ii soo dhowaysay si wanaagsan, tababarahana wuxuu u muuqdaa mid shaqaynaya. ma sugi karo si aan u gaaro hadafyadayda. waxaan doonayaa inaan halkan ugu ciyaaro si fiican. intaasi kadib, Aaron Ramsey wuxuu ka hadlay aragtidiisa ku aadan macallimka lagu magacaabo Maurizio Sarri, waxaana uu yidhi: waxaan arkay isagoo ah tababaraha kooxda Chelsea xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. waa macallim jecel inuu ciyaaro kubad wacan oo wanaagsan. shaqo fiican ayuu ka qabtay kooxda Chelsea. waxaan ku kalsooni qabaa in halkan uu ku guulaysan doono isaga. Aaron Ramsey ayaa u soo ciyaaray Arsenal muddo dhan 11 sano, waana intii u dhaxaysay 2008 ilaa iyo 2019. waxa uuna kula guulaystay ilaa iyo 5 koob. waxa ayna kale yihiin 3 jeer ayuu la qaaday koobka FA Cup-ka, halka koobka lagu magacaabo Community Shield uu kula guulaystay ilaa iyo 2 jeer kooxda Gunners. waxa uuna ku soo qaatay waqti wacan oo wanaagsan, inkasta uusan ku hogaaminin naadigu Arsenal ku guulaysiga horyaalnimada Premier League ee dalka Ingiriiska. kadib ku biiristii Antonio Griezmann ee kooxda Barcelona, waa kuwe heshiisyada 10 ah ee ugu qaalisan ilaa iyo haatan suuqa kale iibsigu ciyaartoyda. laacibka koobaad waa ninka lagu magacaabo Joe Felix oo Benfica ay kaga qaadatay Atletico Madrid adduun lacageed gaaraya 126 milyan oo euro. Antonio Griezmann ayaana noqonaya laacibka labaad ee ugu qaalisan ilaa iyo haatan inta uu furan yahay suuqa kale iibsigu ciyaartoyda, isagoo Barcelona ugu wareegay adduun lacageed gaaraya 120 milyan oo euro xilli ay ka qaateen kooxda ka dhisan caasimadda Spain ee Atletico Madrid. laacibka saddexaad waa Eden Hazard oo Real Madrid ay kala wareegtay kooxda Chelsea adduun lacageed gaaraya 100 milyan oo euro. laacibka afraad waa Lucas Hernandez oo Bayern Munich ugu biiray ilaa iyo 80 milyan. Frank de Jong oo Barcelona ay kula wareegtay 75 milyan xilli ay ka qaadatay kooxda Ajax Amsterdam. Rodri oo Atletico Madrid ay ka qaadatay Man City ayaana ku qarash garaysay adduun lacageed gaaraya 70 milyan oo euro xilli uu noqday laacibka ugu qaalisan ee City taariikhda ay iibsato. Luka Jovic oo ay kala wareegtay kooxda Real Madrid, kooxda Frankfurt ee ka ciyaarta Bundesliga Jarmalka. Madrid ayaa ka bixisay 60 milyan oo euro. laacibka ugu dambeeya ee tobanaadna waa laacibka lagu magacaabo Tanguy Ndombele oo Lyon ay ka iibsatay kooxda Tottenham xilli Tottenham ay ku qarash garaysay adduun lacageed gaaraya 60 milyan oo euro. 10kaasi xidig ayaana ugu qaalisan ilaa iyo haatan suuqa xagaygan ee 2019. qodobkeena doodana waxa uu noqonayaa 10 kale ciyaartoy xidigee ayaa isleedahay saamayn mugle ayuu ka geysan doonaa kooxdiisa. haddaba aragtidada noogu reeb xagga commentiga.